Saylka afraad wuxuu leeyahay maalmahan dambe wuxuu leeyahay magaalada Muqdisho waxaa ku soo batay taalooyin loo sameeyo dadkii u soo halgamay waddanka. Taalooyinka la sameynaya shariicadu maxay ka qabtaa? Ma jiraa qaab shariicadu ogoshahay oo dadka haleeyada ah loogu maamuusi karo? Si kooban shariicada islaamku taalooyinkan ma bannaana in la dhiso. Magac kasta ha loo yeelo ama maamuus maqaam ama magac dilkii la doonay ha loo sameeyo. Tamaathiishan iyo taalooyinkan waa kuwii asnaamta ahaa ee nabigu Kacbada markuu yimid uu burburiyey way. Labadaba ama saddexdaba sharcigeennu waa u diiday. Taalo la dhisay aadamu waxay ku soo bilaabatay dad fiican oo khayr badnaa oo ha lagu xasuusto ha la xuso laleeyahay. dad baa halgamayna inay isla macnahaas oo kale xambaarsan tahay wax fiican bay sameeyeen ha lagu xasuustaa. Markii dambana waa la caabuday dad fiican bay haayeen. Waxaa kaloo la caabuday kuwa taalo loogu sameeyey khaa'imiin dhib badnaa sida sheekada iyo taariikhda lagu kala dhaxlay. Kacbada agaheeda waxaa oli jiro asnaamta waaweyn oo xoolaha carabi ku qasha ka mid ahaa Isaaf iyo Naa'ila. Isaaf waa nin, Naa'ilana waa naag. Waxay yidhaahdaan waa laba isku dayey inay xumaata iyo zina ku sameeyaan Kacbada kadibna Ilaahay qallajiyey oo cadaabay. kadib laba meelood bay kala ooli jireen bay yidhaahdaan taariikhda iyo kitaabta qasasku. Carab meel bay isugu keento Ilaahya la caabudaa laga dhigtay. kuwiiba cadaabka ku dhacay ee Kacbada xumaatada ku sameeyey Kacbadiina waa ixtiraamayna iyagana waa caabuday. Caqliga bini aadamkuna waa un caqligii. caalamka asnaamta la caabudana waa un taalooyin ka turjumaya dad la weynaynayo oo la qadarinayo. saas darteed baa sharciga islaamku xaaraantinimeeyey calina nabigu kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wax allaale wixii taalle u arka inuu dudumiyo jabiyo. mar haddii sharcigu xaaraantinimeeyey fasaad iyo fidno badanna ay keenayso oy keentay taariikhdii horena in maal iyo xoolo lagu bixiyo khalad wey. dadku intii laga tegey baa ninba ninkuu jecel yahay buu taalla u sameeyaa. weli waxaa taariikh ahaan ka jooga qubuurta awliyada ee qubadaha laga dhisayo isagii baa lagu xasuusanayaa. qaarka mawlaca laga dhisay iyagii baa lagu xasuusanayaa. dadku haddaynan iyagoo qiime iyo damiir lahayn, diin iyo dadannimo haddaynan lahayn, taallo xoolo badan la geliyo meel laga taagay wax macnaa ma samaynayso. markii dambena kuwo aan laba aqoon baa taallooyin loo sameeyey. caalamka o dhan bay ka jiraan. carabtuna aljundiyu almajhuul bay yidhaahdaan. soomaaliduna daljirka daahsoon bay yidhaahdaan. manaa kii aan la aqoonin xataa taallaa loo samayn baa layidhi. da taallo meel laga taagay inayna wax macno oo badan lahayn. kuwii Soomaali ka taagnaa burburku markuu dhacay kadib waa kii la wada dumiya la wada gatay. dadkani diin iyo damiir iyo dadannimo in la dhisay wax ku noqon karaane derbiyada taalooyin laga taagtaagay hanti aynan mudnaynna lagu bixiyey dadkani wax ku noqon maayaan. dadku haddii la raba dad nool in laga dhigo, dad wax tarsada laga dhigo, dad iyo dal iyo diin difaacda laga dhigo, waa in tarbiyadooda iyo waxtarkooda iyo maamulkooda la toosiya u baahan yihiin. si ay ku bannaan tahay ma jiro tamaathiisha iyo taalooyinkaas. haddii un dembi laga cararayo waa in madaxa laga guro, mid aan madax lahayn laga dhigo. sawirku waxaa la ogolaadaa ama wax noqdaa marka madaxyada laga guro oosan wax nool noqon karin.